ninkan meeshaad ku arkaysid ma aragtaa gariir ayaa la dhahaa wax alliya wuxuu yahay ilaahay un baan garanaya maana kuma dambaabi kara mogta laakiinse ninkaani adu waxyaaba badan waayo marka qaarkood waa nin marka qaarkood waa naag marka qaarkood waa ayeeyo marka qaarkood waa awoo marka qaarkoodna intaabuu ka tago manaha wax lagu tilmaamo lama garanayo dadku aad buu la yaabaa markay diintii awqaafta ama dowladda Somaliland ay xirto dad oo manaha waxay dhahaan maxaa hebel loo xirayaa maxaa saan loo samaynayaa laakiin aan waxaan jeclaan lahaaba muqdisho dhexdeeda in laga sameeyo diintii awqaafta oo kale oo macnaha wax walba oo khaldan oo diinta ka soo horjeeda meeshii lagu samaynayo in meesha la aado oo dadka la soo qabto anuu ma jeclaan lahaaba sababtoo ah gariiray markuu soo galay social media wuxuu naga dhaadhiciyay inuu qof caadi yahay haddaad ku dhahayd macal khaaba tahay ani maxaa zaan ilay wallahi billahi anu zaasmihi uu ku dhahaa laakiin ugu dambeyntii muxuu sameeyay ma garanaysaa dirac buu soo xirtay haddana dirac uu ka soo yara baxay muxuu sameeyay ma garanaysaa haddana niman buu ku dhegdhegay haddana uu ka soo yara baxay muxuu sameeyay haddana qasqas buu yimaana wuxuu ku leeyahay waxaan iga iibso saan samee waa $1 degdega lagu keenaa macnaha step by step meesha buu ka soo dhaqaaqay meeshii labaad buu imaaday meeshii saddexaad buu imaaday marka anu hadda saaqaanta aad ugu faraxsanahay in dadkan oo kale laga qabto waxaan ku faraxsanahay dadkan oo kale in la dhaqan celiyo oo lagu dhahay macnaha anagu waxaan sameynaysid ma ogolin diintuna ma ogolo caruurna social media way noogu jirtaayo waxaan inay normal u aragta anagu ma rabno insa la yiraahdo aad buu jeclaan lahaa sababtoo ah maalin waxaan ka hadlayay kan eeg waxaan waa nin Soomaaliya uu kula joogaa kuwa badan oo noocan ah jira oo wali aanu arkin qaar waxaa jira waliba aan social media isticmaalin oo ah macnaha dad qarsan buri ma ka kala macnaha qofkaas uu naga fog yahay meel sharci uu joogaa xaqi xuquuq buu leeyahay diin kala meelaha laga haystaa laakiin qofka Soomaaliya jooga ee dukaanka ka iibsanayso wax ka iibsanaya ee meeshaad maraysid kula maraya haduu doono masaajidku iska soo galaa qofkaas oo kale wax laga qabto waay midda kale aad kala yaabka u leh waxa weeyaan waagi hore hadday dadku khaniisiin arkaan a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim war waxaan waa maxay war waan halaagmanay war naga soo gaaray baa la oran jiray hadda haddii khaniis la arko macnaha imka tusaale ahaan gabdhaha TikTok ku jira ama social media ku jira hadday arkaan nin khaniis oo naag iska dhigay hadduu qurux badan yahay comment waxa uu soo qoraan garanaysaa alla wallahi khaniiskan baa maaniga qurux badan laakiin heblaay ka qurux badan yahay ma aragtiin may walaal ninka in la qabto waa qurux laga hadlo ma ninkan in la qabto waaye idinka macnaha motivation u sii aba heblaay ka qurux badan yahay dhaxaysa birito waa iska soo gooyba adaa waxa simka sabab u ah dambiga kanigi male waa la qaybsatay imka ogow marka walaalayaalow wadanku muxuu inoogu hagaaga hadii ay dadka inagu dhex jiraan ilaahay baan kugu dhaarshay qofkiiba haduuna ka cabsanayn ka waran in uu dhaqamada khaas sameeyo qofkii haduuna ka cabsanayn ka waran uu cabsi ka qabin baba dadka qaar macaan in la xiro uma baahnaba dadka qaar macaan in gacan loo qaado uma baahnaba waxa kaliya loo baahan yahay in loo tago lagu laado qaabkan aad u dhaqmaysid diin ahaan iyo dhaqan ahaanba waa khalad haddii intaas uu lagu dhaw waa nasteexa moogti waa loo nasteexiyay waxa lagu dhaw walaalo waxa adigu sameynaysaa samee laakiin hanoo soo bandhigin anaga waxaan hanoo promote gareynin midda kale ilaahay baan kugu dhaarshay anu imka qurbaan jooga anu khaniisiin badan waa arkay laakiin adigaaga daawanaya bal commentiga noogu soo qor weligaa wadanka aad joogtid khaniis ma ku dhex aragtay weliba gaar ahaan Soomaaliya qof khaniisa oo jaarkiina ah ama qof khaniis oo garanaysa ma jira hadduu jiro walaalayaal bal ka fogaada ama u sheegade anu walaal khaniis aan ku dhayaa walaal waxaan khalad waay waxaan aad sameynaysid khalad waay